أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي بقى سبحانه وتعالى مهد أمانة إلهي بقى سبحانه وتعالى. قيبت اللبات بروجرامك دعوة إن إلهي سبحانه وتعالى درتي سلوف وفيه قيبت اللبات بان هلكن كجرينا هدو الله يراهو ندودي لبات بان أبلنسنين مانتا ومعناها مشايخ خلدون أي نوغو قرنت إن معناها بروجرامك أي هلكن كسود جيديسو. قيبت اللبات عن جرينا وكسابسن آداب العيد وحنا نسو جيدين دون هدو الله يراهو ولكن شيخ أحمد حسين فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. إخوة الكرام، إلهي بان سبحانه وتعالى أمهدنقينا نسو قارسيي بشر رمضان لباتنكي هراء عن صوصوني طبانكي دنبانا أي نوهر سنتهي. إلهي وحن كرجيننا سبحانه وتعالى إنان محو هاي مدداس أيضا أكوار أما يسترتو ثواب كذي أجر كذا نكوه هلو إنه إلهي سبحانه وتعالى نقدقه بان إلهي كبرينا جل وعلا إن شاء الله تعالى. وحان ربائنان حصه برنامج كسابسان ayadoo ay soo dhowdahay waqtigii ramadaanka gabagabadiisii barnaamij zakatul fitri ama sadaqatul fitri waxa la yiraahdo. sadaqatul fitrina waa la yiraahdaa, zakatul fitrina waa la yiraahdaa. marka zakatul fitri waxa loogu magacaabay ayada ayaa waxay dhacaysaa sadaqadaas ama zakadaasi waxay imaanaysaa عند الإفطار من رمضان، markii bisha ramadaan soomitaankeeda la soo gabagabeeyo ayay imaanaysaa. sidaa darteed baa zakatul fitri loo yiri. marka axkaam badan baa ku tacalluqayso zakatul fitri. waxaan xusi doonaa marka insha allahu tacaala wixii ilaahay naga garansiiyo ama naga karsiiyo ayaan ka xusaynaa axkaamteeda iyo wixii ku saabsan zakatul fitri. أولا وحن شيء دونا إن شاء الله تعالى حكمها ودليل ذلك. زكاة الفطر حكم كيدو محوية هاي معناها ما السنة مسوى واجب. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. زكاة الفطر أما الدقرسون كوحل يرادو إن لبحيو وشيء واجبة qof kasta oo muslima ayay ku waajibtay. waxaa soo aroortay adilla ku saabsan oo fara badan. waxaa ka mid ah xadiis uu warinaya ibn cumar رضي الله تعالى عنه وأرضاه. wuxuu leeyahay ibn cumar farada rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam sadaqata alfitri. nabigu wuxuu farad yeelay ama waajib yeelay sadaqatul fitriga. macnaha zakatul fitriga ama sadaqatul fitriga ayaa nabigu waajib yeelay sala allahu calayhi wasalam min ramadaana. ramadaan markii laga afuro
in la bixiyo zakaatul fitri ama dagarsoonka waxa afka Soomaaliga looga yaqaan in la bixiyo yaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu farad yeelay. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa shaarici weeyaan, shaarica alla iyo rasuulka waaye. ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxbuu sharciyeeyaa, nabigana calayhi salaatu wasalaam asagana waa sharciyeeyaa oo maaragtay waxyi kusoo degay min allahi uga imaaday ayuu wax ku sharciyeeyaa nabigu sal allahu alayhi wasalam, ma aha wax maankiisa uu ka sharciyeynaya nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka sidaa darteed sadaqatul fitri ama zakatul fitri waa waajib laga doonayo qof kasta oo muslima. xigmada loo jideeyey zakatul fitriga ama murtida ku jirto ilaa 3 qodob bay culimadu ka sheegeen, kuna soo aroortay riwaayaad nabiga calayhi salaatu wasalaam laga warinhayo sida ku soo aroortayba. waxa weeyaan tathiiru saa'imi min arrafathi wallagwi aw min allagwi warrafathi. waa qodobka koobaad in qofkan muslimka ahoo saa'imka ah oo soo soomahayay in laga daahiriyo oo laga saafi gareeyo soonkiisii waxyaaba hadday soo gaareen daqaro ah oo mathalan laqwigii maala yacnigii iyo cantarbaqashkii iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah haddii uu sameeyoy ka dhaceen, qofkii hadda ka dhowrsado asaga waxba aynan ku dhicin ziyaaday u noqonaysaa sadaqatul fitriga. marka tuhratan lisaa'imi, qofkii saa'imka ahaa iyay soonkiisii nadiifinaysaa waxyaabihii gaargaaray oo daqaro ahaa ama yacni soonka ajarkiisa wax dhimahayay ayay maaragtay ayay ka saafi garanaysaa oo way dhaadaysaa oo macnaha way kabaysaa weeyaan, wixii daqar gaaray bay ayay ka daaweynaysaa. taas waa qodob. qodobka labaad iqnaa'an lilfuqaraa'i, dadka fuqarada oo saboolka ah in maalintaa lagu fillaado oo dawarsigii iyo tuugsigii ay ku mashquulsanaayeen inay ayagana ka fariistaan oo ciiddaa iyo maaragtay yacni farxaddaas muslimiinta ay kala qeyb galaan. aqnuuhum can itawaafi buu leey nabigu sal lla alay slam, tawaafki iyo maalinta dawarsiga iyo wareega dadka fuqarada oo saboolka ah kaga filaada buu leey nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka haddii wax la siiyo oo dadka aqniyada oo wax haysto hadday wax bixiyaan oo dagarsoonka bixiyaan oo dadkii mudnaa u xaqa u lahaa la siiyo wax ku filan bay helayaan. oo markaa qofkii hadda iimaan qabo oo maaragtay yacni quutulyoomkiisa un raadinhayay hadduu xoogaha fiican oo badar iyo koosaartiisa hadduu helo waa iska joogaya oo farxaddaasu muslimiinta kala qeybgelaya. waa qodobka labaad ayadana oo loo jideeyo weeyaan. wax kasta oo la jideeyo xigmaa ku jirto. marka xigmada ee loo jideeyo zakaatul fitriga ayay ka mid tahay taasina tathiiran lisaa'imi wa ignaa'an lilfuqaraa'i. qodobka saddexaad oo loo jideeyey zakaatul fitriga waxaa la dhahay idhaaru shukri, in la muujiyo shukriga ilaahay subxaanahu wa tacaala, nicamta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo maaragtay noo sameeyey oo noo taam yeelay in la muujiyo. walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacalakum tashkuruuna, sida rabbi alciza subxaanahu wa tacaala aayaddiisa maaragtay qur-aanka uu ku sheegayo. walitukmilu lciddata, inaad muddadaas dhammaystirataan oo bisha macnaha soonkeeda aada dhammaystirataan, iyo walitukabiru llaha calaa maa hadaakum, ilaahay inaad ku weyneysaan subxaanahu wa tacaala hanuuninta uu idin hanuuniyo muslimiin mu'miniin oo idinka dhigay rabbi subxaanahu wa tacaala darteed inaad ilaahay ku weyneysaan subxaanahu wa tacaala. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala daa'iman hanuuninta uu ku hanuuniyey oo mu'min kaa dhigay inaad ilaahay ku weyneyso u aqoonsato. waayo dad badan baad arkaysaa iimaankii iyo islaamnimadii aan la waafajin oo ka qatan, adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadaasuu ku siiyey
marka sidaa darteed ilaahay inaad ku weynayso subxaanahu wa tacaala. walitukabiru llaha waxaa kaloo lagu fasiray takbiirta la qaadahayo maalinta ciidda la qaadahayo oo faraha badan la qaadahayo, walacalakum tashkuruuna, iyo ilaahay inaad ku shukrisaan subxaanahu wa tacaala. rabbi inaad ugu shukrisaan nicamtaas uu idin galay, soonkii ood soo dhammaystirateen 30kii ama 29kii ciddadii ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku waajibiyey ood soo dhammaysateen, iyo wixii kaloo acmaal ah ood la timaadeen ay ka mid tahay qiyaamuleylkii, qiraa'atulquraankii, istikfaartii, iyo maaragtay wixii kale oo la halmaalo inaad ilaahay ugu shukrisaan subxaanahu wa tacaala. marka xigmada loo jideeyey waxaan nidhi waa fara badan tahay, 3 baan ka xusaynaa insha allah. tahiiru saa'imi, ignaau lfuqaraa'i, idhaaru shukri. soonkaa wixii kaa gaaray oo daqaro oo dhibaatooyinho gaaray oo maala yacni iyo wixii kaa soo baxay camal xun oon loo baahnayn ood samaysay oo soonkaaga dhibaato gaarsiiyey, in maaragtay lagu daahiriyo oo looga dhaqo oo looga tirtiro. iyo dadka fuqarada ah oo saboolka ah ama masaakiinta in looga fillaado maalintaas, tawaafkii iyo dawarsigii in looga fillaado ayaa maaragtay ka mid ah. iyo idhaaru shukri waa qodobka 3aad, shukriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la daahiriyo oo la muujiyo weeyaan. shukriga oo la muujiyo oo macnaha shukrigan ilaahay loogu shukrinayo subxaanahu wa tacaala wuxuu noqonayaa shukrun billisaan wa shukrun bilcamali, in lisaankana ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu shukriyo oo afka looga hadlo oo la yidhaahdo alxamdu lilahi alladii binicmatihi tutimu saalixaati, inaad tiraahdo afka ka sheegto, iyo camalla inaad ku muujiso, sadaqa aad bixiso, qaraabada aad xiriiriso, ilaahay kuu roonaaye maaragtay arrimahaasoo dhan ayaa shukri noqonaya. shukrigu marka waa fara badan yahay, billisaani iyo bilcamali ayaa maaragtay xikamka loo jideeyey ayaa ka mid a maaragtay. waxaa kale oo insha allahu aan carab ku dhifan doonaa miqdaaru lwaajibi wa mima yukhraju. qadarka waxa la bixinayo waxay tahay, oo degirsoonka waxa loo bixinayo waxa ay tahay, maxaa la bixinayaa? ma lacag baa la bixinayaa, ma caanaa la bixinayaa, ma hilib baa la bixinayaa, waxa bani aadanuhu uu qoto ma qudaar baa la bixinaya, waa fara badan yihiin, ma raashin baa la bixinayaa, waxa la bixinayo maxay tahay? qadarka la bixinayana intee buu la eg yahay? marka taasaan insha allahu sheegi doonaa maaragtay. miqdaaru lwaajibi, qadarka waajibka ah iyo waxa la bixinayo hal mar baa maaragtay aan oofsanaynaa. saacun min gaalibi quuti lbaladi, saacun waa suus oo min gaalibi quuti lbaladi, beledka waxa quudka laga dhigto guriga bani aadanuhu ay cunaan beledkaa joogo oo loo badan yahay, macnaha raashinka loo badan yahay ayaa maaragtay la bixinayaa. waxa la bixinayana waa suus weeyaan. suus baa la yidhaha af soomaaliga, soomaalida waa wada taqaana suuska. marka suuska qadarkiisu waxaa lagu qadaray 2 kiilo iyo garaamaad yar, ilaa 40 garaamo meelahaas, 2 kiilo iyo 40 garaamo. sidaasaa maaragtay culimadu ay ku sheegeen, sidii culimadeeni soomaalida ay soo xigteen maaragtay. nin la yidhaha taabici oo la dhihi jiray magaciisa abudhi'bi oo suus u lahaan jiray maaragtay, oo uu ka soo xigtay suuskii nabiga sal alla alayh wasalam la isa soo gaargaarsiiyey, bay culimadeennii soomaalida ay soo qaadeen ama soo qiyaaseen oo soo qadareen. haddii la beegay wuxuu noqday suuskaasi, suuska saacu abudhi'bi baa la dhihi jiray, 2 kiilo iyo 40 garaamo, waa 2040 garaamo haddii garaam ahaan aan u sheegnana, ama waa 2 kiilo ilan kiiliba waa 1000 garaame, 2040 garaamo, 2 kiilo iyo 40 garaamo. sidaasaa maaragtay lagu qiyaasay. haddii laga badiyo oo 2 kiilo iyo bar haddii la gaarsiiyo waa khayr weeyaan, ad siyaadsatay weeyaan, lagu diidi maayo. wax ka naaqus un baa la diidaya, wixii aad badiso waa khayr aad badsatay weeyaan, dhib ma laha. waxaa la bixinaya gaalibu quuti lbaladi waay, waa gaalibu quuti lbaladi, beledka wax quudka laga dhigto ee loo badan yahay weeyaan. sida matalan
bariiskii, maxaan ku iraday galeydii, misigadi, qamadigi, shaciirtii ama sareenkii. badanaa annaga haddaan nahay dadka Soomaalida ah waxaan quutul balad nooca inta badan waa bariis. marka bariiska waa la bixin karaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu waajibiyey saacan min tamrin aw saacan min burrin aw saacan min shaciirin aw saacan min aqitin. sidaasay leeyihin maarata asxaabtu ay ka soo xiganayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka warinayaan. suus ama xeero suus oo timira ama suus qamadi ah. burku waxa weeye waa qamadi. ama suus sareyna ama suus aqid, caanaha aqidka la yiraahdo. aqidku waxa weeyaan al-labanu al-mujaffaf waa caano la adkeeyo la fariisiye weeyaan oo macnaha mutaxajir aho macnaha la adkeeyo weeyaan. waa la jabinayaa macnaha waa qasanaya qofku markuu rabo. waa hadii la waayo way kuwa hore hadii la waayo, hadii timirtii la waayo ama qamadigi ama sareenkii hadii la waayo, wixii ku soo xigo marka caanaha. dadka reemiyiga oo kale ayaa caano fadhiyana inta badan inaysan helin baa laga yaabaa. haddii marka inkastoo hadda dunida meel kastaba raashin laga cuno, meel kastaba dunida raashin baa laga cunaa. dadka reemiyiga caanaha inta suuqa geeyaan ay lacagayaan bay raashin ku soo gadanayaan. marka raashin hadda meel aan laga helin ma laha. wixii raashin noqon kara loo baahan yahay weeyaan. غالب قوت البلد iyo saac ayaa la bixinayaa. marka macnaha hadda suusku wax u baahan ma aha, yani fasiraad kale wax u baahan ma aha. garaamaadka hadda la isticmaalo dunida laga isticmaalo ama miisaanka waxa la yiraahdo ka baa loo isticmaalaya 2 kiilo xogaa baad raacinaysaa 40 garaamo. haddaad ka sii badiso waa wanaag aad badsatay weeyaan. marxaba waxa iska banaan dad jamaaca intay wax isku darsadaan in hal qof siiyaan waa banaan tahay. dad badan mesela intay isku darsadaan dadka masaakiinta ah lor bariis la siiyo inta la isku darsado waa banaan tahay. waxa kale oo banaan hal qof dagirsoonkiisa iyo kii reerkiisa inuu dad badan siiyo iyo inuu hal qof siiyo intaba iska banaan tahay. sidii zakaatul maalki oo kale la mid maaha. waxaa banaan in la siiya baan niri jamaaca in dad badan intay isku dardaraan inay hal qof siiyaan. anaa wax ku filan bay u noqoni ma sha Allah. hal qof inuu jamaaca siiyana waa banaan toos u qaybiyo inta waa banaan tahay. waxay leedahay marka dagarsoonku waqtul wujub, waqtul wujubi wal adaa'i wax la yiraahdo. waqtiga ay waajibayso oo adana ay noqonayso aysan qalan noqonaynin. waxa kale oo ay macnaha jiro ay leedahay waqtul jawaaz wax la yiraahdo. waqti ay iska banaan tahay ayna waajibin, iyadoo waajibin aad si bixin karta weeyaan. waqtiga ay waajibayso waxay ka bilaabanaysaa ghurubu shamsi min laylati al-eid. habeenka ciida ay soo galayso oo shawaal ay kow tahay, qoraxdaas maanta ramadaan u dambayso qoraxdu markay dhacdo ayaa wujuubkeedii bilaabanaya. ilaa inay waajibta hore baan soo sheegnay. laylat al-eid ama habeenka ciida ah qoraxdu markay dhacdo waa maalintii ramadaan u dambaysay, habeenkaana shawaal ay kow tahay, waqtigaas ay waajibaysaa. marka waqti la yiraahdo waqti fadiila la yiraahdo, waqtul fadiila wal adaa waqti la yiraahdo ayaa jiro. waqtul fadiilahaasi wal adaa waagu markuu baryo subaxa ciida ah iyo ciida waqtiga la tukanayo inta u dhaxayso ayaa waqtul fadiila la yiraahdaa. waqtigaas ugu fiican. waqtigaas ugu fiican. waqtul fadiila la yiraahdaa macnaha xalay haday kugu waajibtay isla habeennimada waad bixin kartaa. laakiin sida u fiican inaad dib u dhigto ood bixiso markii waagu baryo subaxa ciida ah ilaa intii laga gaarayo ciida. waqtul jawaaz baa jira wax la yiraahdo waqti iska banaan markay ramadaan ka dhiman tahay 2 beri ama 3 beri ama maalin ay ka dhiman tahay, 3 beri ama 2 beri ama hal maalin ay ka dhiman tahay.
way bannaan tahay inaad sii hormarsato. culimada qaar baa qabo in ramadaan kala barkiisa iyo bilowgiisa iyo meelaha in la bixin karo sida habboon, laakiin in la soo dhaweeyo ayay ku habboon tahay, si micnaha qofkii haddii ramadaan awalkiisa ama dhexbarihiisa haddii la siiyo way ka dhammaan raashinkii. haddii dib loo dhiga laakiin maalin ama labo ayadoo soonkii ka dhimanta haddii la siiyo waxbaa u gaari maalinta ciidda, marka way kaga filaani dawarsigii iyo dadkii masaakiinta ahaa way kaga filaani, raashin baa u yaallo. qofkii iimaan qabo waqtuljawaaz baa la yidhaha, taasna oo la bixin karaa. waxaa jiro wakti aan banaaneen in la gaarsiiyo. bacd alciid qofku inuu gaarsiiyo lama ogolo, isagoo janis heli karo macnaha fursad haysto uu ku bixiyo inuu macnaha ciidda kadib mariyo. nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay man addaaha qabla salaati fa hiya zakaatun maqbuulatun. salaada ka hor qofkii la baxo waa zaka la aqbalay. waman addaaha bacda salaati wahiya sadaqatu min asadaqaati. salaada qofkii kadib mariya buu leeyay nabigu sal allahu alayhi wasalam waa sadaqad oo sadaqadaha ka mid ah, macnaha zakadii booskii zakada ma buuxinaysa weeyaan, waana dambaabaya qofku isaga oo fursad haysto haddii uu bixin waayo waa ku dambaabayaa. marka looma baahno in dib loo dhigo. marxaba marxaba waxay ku waajibaysaa marka laba shardi unbay ku waajibaysaa. laba shardi unbay ku waajibaysaa. waa inuu qofku yahay muslim, qof muslima inuu yahay, iyo inuu heli karo wax ka baaqi ah ama ka faadil oo dheeri ka ah baahidiisa maalinta ciidda iyo habeenkeeda. wax ka faadila waa inuu heli karo weyaan. mana macnaha qasabna ma aha qofku inuu gado waxyaabaha macnaha nolosha reerka halbowlaha u ah, sida matalan gaadiidka oo kale la isticmaalayo reerku ku nool yahay, ama guriga in la gado, gaarigii markaa yani qofku uu maaragtay ku adeeganhayay in la gado, ama dhulkii macnaha reerku deganaa in qeyb ha la gado la yihahdo. waxyaalahaas oo dhan maya. waxyaabaha kale ama lacag ha ahaato, ama xoolo nool ha ahaato, ama badar ha ahaato, wixii kale oo macnaha maciishada reerka ah. dadka maaragtay reer miyiga oo kale ari bay haystaan, geel baa joogo, lo baa joogto, waa la gadaya, waa la lacageynaya, raashin baa lagu soo gadaya. qofkii isagoo tiro ari haysto inuu yiraahdo badar ma haystay waxaan ku guda ma laha, maya, taas ma soconayso, wax shaqeynaya maaha, taas lama ogolo. marka waa inuu qofku muslim yahay, waa in uu heli karo maalinta yani baahidiisa iyo waxyaalaha uu kasan ka maarmin wax ka dheeri ah, waa inuu heli karo qofku. qofka waxaa waajiba inuu ka bixiyo naftiisa awalan, iyo cid allaale ciddii biilkooda uu ku waajibay oo xaaskii, caruurtii iyo qaraabadii kale, wixii biilkooda uu ku waajibay inuu bixiyo. hadduu heli karo qeyb ka mid ah, awalan naftiisuu ka bilaabaya, xaaskaa lagu xijinaya, caruurta yaryar baa lagu xijinaya, wahaakada. marka siday u gaarto sidaasa loo wadaya. dhammaan marka ha ahaado rag iyo dumar, yaryar iyo waaweyn, xor iyo addoon, waxay doontaa ahaato, intaba waa in laga zakeeya weyaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xataa addoommadii waa laga bixinaya, laa zakaata fi lcabiidi ilaa sadaqat lfitri. addoommada macnaha waa wakti addoommo ay jireen baa jirto, dunida hadda maanta lagama hela inta badan. addoommo ay jireen baa jirtay oo dad hanti ahaan ay ulahaayeen, sida xoolihii oo kale ay lahaan jireen baa jirto. marka sayidka iyay ku waajibi, qof kale addoonkaas iyay ku waajibi, qofkaasaa ka bixinayo. marxaba. marka waa sidaa arrimaha marka qaabkaasay u bixi haddii ilaahay yidhaahdo. sadaqatulfitriga dadyawgaasa marka ayay ku waajibi. ilmaha macnaha uurka ku jiro
waa laga bixiyaa, waa sunna in laga bixiyo, waajib ma aha, waa sunno sida salafkiiba ay sameeyeen dadkii salafka aha. Cuthmaan ibn Cafaan waxaa laga sheegay ilma uurka ku jiro inuu ka bixiyey, laakiin shardi waxaa cunugaas inuu gaaray waqtigii nafta lagu afuufayay, macnaha cunug macnaha nool 4 bilood kaamil yeeshay waa inuu yahay, waa laga bixinaya, waa haboonta, waa wax ajir laga helayo. waxa salafkii ay sameeyeen waa shay wanaagsan oo maaragtay maqbuula, sadaqa maqbuula weeyaan, laakiin laazim ma aha. marka insha allahu tacaala inahaas ayaa maaragtay aan kusoo gebagabeynayna insha allahu zakaatulfitrigi wixii ku saabsan. aada wabillahi tawfiiq. ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala kuwa dhammaystirtay ramadaanka soomitaankiisa, bisha ramadaan soomitaankeeda oo ilaahay uu gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala maalintaas iyada ah oo degersoonka la bixinayo, ilaahayna acmaashooda uu aqbalo baan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga mid yeelo. hada wabillahi tawfiiq, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.